كلون يها قبن قابدي وزارة warfaafinta wacyigelinta bulshada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya yama balka qowday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay kaasay toodleen ku hadlaayay doorka wacyigelinta bulshada oo ku qayb qaadan lahaayeen arrimaha haweenka iyo sidii dadka codsho deeri lahaay bulshada kala kulunku ayaa ku qayb galan Senator Xuseen Sheekh Maxamuud gudoomiyihii hore ee gobolka Shabeellada Hoose Culmaawdiin agaasimayaal wasiirka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta bulshada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo dhalinyarada magaalada Baydhabo baan ku horeentay ku hadlay muhiimadda kulanka dood wadaaga wasiirka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta bulshada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wadana uga asaasan Cabdi Maxamed waliba uu sheegay in warbaahinta Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo dadaal badan ka jarta sidii ay horumarin lahayd bulshada Koonfur Galbeed Soomaaliya idan la ka wacyigeliyo karo walanka sheeg karo wali waaha aaladan maqalka ee waana muuqaalka ee uu taas ku duulana wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Koonfur Galbeed Soomaaliya wali go'aansatay balaniya dadkan dhawaata موضوع كست أو دينية والبرشة هذا عافمات كهذا أرمها سياسة هذا أرمها هوين كهذا دورشين كهذا والكست أول لنعرجني مهم إني تتكن والبدن لنكو قبض وانا لهم بندك يجو أنسلي أجسمها تي في كيانة أجسمها راديو كونفور قلبت سوماليا إني يوشنان برنامج ديجلر وإذا أنك ما هزيني تطبعات كهورا سيسون كورا قبطة أما أنفرسته أما دوغن ستيبا كلكم وليلة قبضي برنامج لكو كهذا لو دتك هم دمنك أو ورباهنت الدولة كو قاعدة سيدروفو يو قبان يو عرب بدن فكر بدن لس لافسدي مركا إذا ما سنتين لما لا قاسمة راديو يونتي تي في كونفور قلبت سوماليا وأنا واجب أما مانديد أن وزارة هان لأنه وعيقلنت بالشدة وزارة دنيا هوس كويس والله ولا بهرمر له كونفور قلبت سوماليا إني أنا كشجع هنا وقت جو وأنا دتك هدير إنه مهم نيجا موضوع عنصر ضبطن دورك بلانتا كوجب قاعد الشدة أرمها بالشدة سياسة نقالها أمنية موضوع عيد فيدو والبعض أول قوة هذا لي ولين ذرابي بلانتا ما دي سياسة هردواتو أم حلمان لدور ذا أم وزير للسوبي أنت بدن يو نفتون دوديو يا هنوم بدن تا أم تكلا ده حالة دقنتا هنوم قوة لا marka sheekh Aweys iyo naytay senatarka in badan geedan ku hadlayn to diintaano ba na amaraase walaagi ilaahay subhanahu wa ta'ala hanin daji oo nabashayna hanin gadibi sallallahu alayhi wasallam inuu rana waajibna saarmo xuquuqda haweenkana diiniyan meela ka xusanta kitaabka ilaahay daji iyo sunnada nabiga Muhammad sallallahu alayhi wasallam ya ka xusanta ama walaan kale doon nololun asaasiga oo hooselan nolodo ee salan wada shaqaysidee wala barashada saalwale نولاس حياة الدنيا ذي ولي وها إن إسكول جيب قاعدان والديدو مله مدل في استيداد كلا إذا أنكو فايلنا صدقني كو حبنا ذو عن رابع البرلمان كبقول فقتي سجارك كجرتي كان لا تسدونه بإذن الله تعالى يضو طبعا قبل كنا اللي تحقليه ربيتان شيء بلانتن أقوانتي علمش اللي تحقليه كوتو ديو سدي إني عنده ضيان ما صدق كلا ذو كفايل لنا ككرة ولي رجاي برلمان كوفر قلب السوامالي إنيو حق للدونا بلانتو ولا برشة كده دالو ولا لكترت مونا جنس كمجلي بلان أي نجنا أقوانت يونتي علم كنا نقدم مهم نيجا gabagabadii kulanka oo ku hadlay Senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo ku tirsan baarlamaanka minka kore ee dowladda federaalka Soomaaliya uu soo sheegay in horumarka bulshada yaata laf dhabarka bini'aadanimada atam argne hamiyo hoosan sidii intii iyo walbaradan intii iyo shaqeeyan intii iyo mujtamaci awlaadiye iyo familshe wal haka nagda culays isku jaara kora oo markii ma arne iyo qoys nagata laakiin hatana ma arne hamigi anta badan ku dhamaday markaan faktorka koowaad caqabada koowaad oo aan rafadi balaanta wala iyo hatta 30 kilo sheegay in sheeno waysanta wala in maleeyay faktor balaanta iyo ku qoyti tusaale yar hasin qaadada unaata gudiga dastuurka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee gudigaas madilaha ku tabal li xubnood dawlad goboleedyada hadarsadeen oo magacaabidka kooy abukaata dalab ku mid ay tuman xubnaada ka kooban tuman kayna ba magalaayna tuman kayna lama isada madilaha ku tabal dadka kala balaanga la tartameen balaanti baarlamaanka golaha shacabka tusaale ahaan sagaalmeeyay waay haddii iyo gabdho wada coday fadeen sagaalan shaba iyo banis coday fadeen hela fadeen caqabadan ka muhiimsan marka wali baa balaantiyeena amaneys codayas gee hatta sanduuq la dhaka wali ku obsa gabe gabarto kuri ko hoob tartamaan anti balaanti dhan kuri kala inkshaba
iyo iban is ogolayn iyo marka aamina anti isanki ismetelan isan naftin ismetelan aamina tan oo asxaabtaha kana nagdina meelka jirta dadko maalgeliyaasha adduunyada ama donorska la raw ya wali wadana fan la raw conditional donation ama xayraad yakhiran shuruuda kiran beesadan ka siya laakiin shardikin kiran wali faday dawladda Soomaaliya beesada aan ka siyahay balantanti empowerment lanksubi dawladda yalla ka cadaad yahay dawladda koonfur galbeed la ka cadaad yahay hay'adii wasaaradda yalla ka cadaad yahay meel dhan la ka cadaad yahay madii oo fan la hasiyo wali leeya ma arne balanti waat meeli iyo marka hoob xataa fursad ilaahay ku qaaday uu gordo wayni eta iyo ilaahaynin ku sheeni wali inta la muumboonine wali aaminsana anti rabitaanka gabarta ku muhiimsanaada ogolaashaha unina Soomaalida kala magalka in ka dhagna xadidaadkan in ka dhagna gabarti la hadhawaay wali rajeeyo insha Allah ma arna mujtamac is ogol tartan ku dhahoyna gabarti iyo shaqadii iyo waajibaadkii qoyska gudaas akhlaaqdiga ilaasadaas diiniga ee anti ma arna ku qeyb qaadado korto shaqadii siyaasad ku qeyb qaadado korto insha Allah ogolaano rajeeyo wasaaradda waxbarashada wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed iyo raadiyaha iyo television koonfur galbeed sagaaranka ma hanaqaana barnaamijkan nin hirini assalamu alaykum warahmatullahi هذا عبد القادر عبد الرحمن warbaahinta koonfur galbeed magaalada Baydhabo